السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة وأتصل نقمي أنا قفر إنه ومرقبنا حالته إمك وايد جنتهاي دمان جناعسية دا Soomaalida ay ku leedahay xaafadda Mayfair waa la furay dadkii banaanbaxa dhigayayna si nabad ah ayay banaanbaxoodii ku dhigteen runtii waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada booliiska dhalinyarada amniga qaabilsan ee xaafadda Soomaalida iyo waliba guud ahaan dadkii Soomaaliyeed ee maanta muujiyay dareen aad u wanaagsan oo aan isugu soo bixin intooda badan jidadka ganacsigoodii xiray xilligii dadkan ay banaanbaxa dhigayeen waxay aaminsanaayeen dadka banaanbaxa dhigayay in ay la kulmi doonaan arrimo is-hortaaga oo aysan meelaha qaar aysan mari karin sida ay noo sheegeen gelinkii hore ee saakay oo aan ugu tagnay goobtii ay banaanbaxa ka soo bilaabayeen balse taasi ma aysan dhicin wacyigelintii si wanaagsan ayay u qaateen dadka Soomaaliyeed in aysan isugu soo bixin jidadka isla markaana is-hortaag aysan ku samaynin dadkaas banaanbaxa dhigaya walow banaanbaxu uu ahaa banaanbax aan sida u weynayn haddana waxaa la muujiyay sidii ugu habbooneyd oo dadkaasi ay ku mari kareen jidadkii ay dalbadeen in ay maraan ciidamaduna waxa ay sugayeen amniga saacadan wixii ka bilaabo xaaladda waa ay degan tahay dabcan ganacsiyadana waa ay furan yihiin balse waxaa xusid mudan in ay weli cabsidii taagan tahay 30 Juun waa maalinta ugu weyn oo ay iclaamiyeen kooxaha aaminsan dadka sharci darrada ku jooga dalka Koonfur Afrika ama dhinaca kale aan u dhignay dadka aan u ilan dalka Koonfur Afrika in ay dalka isaga baxaan walaacaasi weli waa uu taagan yahay kulamada iyo wada tashigana waa uu sii socon doonaa caawa waxaa dhici doono kulan weyn oo markaasi ay isugu imaanayaan mas'uuliyiinta iyo sidoo kale laamaha amniga dabcan arrintaasina waxaa looga arrinsan doonaa maalmaha fooda inagu soo hayo sidii looga hortagi lahaa ama loo wada diyaarin lahaa qorshaha banaanbaxaasi oo ku dhacayo kaasoo la rajaynayo in asagana uu noqon doono mid nabdoon goobaha ugu daran marka oo Soomaalida dalka Koonfur Afrika ay sida weyn u hadal hayaan waa gobolada Gauteng iyo gobolka Durban ee aan dhahay gobolka KwaZulu-Natal oo magaaladiisu ay tahay Durban labadaasi magaalo waa magaalooyinka ay xasaradaha ugu waaweyn ay ka taagan yihiin inta badanna ay ka bilowdaan banaanbaxyada dadka shacabka ah ay soo abaabuleen waxaanse ka rajaynaynaa in arrintaasi ay ku dhammaato si nabad ah oo aysan dhibaato dhicin dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika guud ahaan waxa laga doonayaa waxa ay tahay in mar walba ay u hoggaansamaan awaamirta ka soo baxda laamaha amniga iyo mas'uuliyiinta marka isku howla in howlahani ay wax ka qabtaan waxaan rajaynaynaa bisha Juun in si nabada aan ku gudbi doono haddii uu eeba yiraahdo balse xasaradaha iyo xiisadaha dalka Koonfur Afrika ku dhamaad leh ma aha mar walba way taagnaan doonaan isku xirnaasho iyo wadajir ayaana looga gudbi karaa waxaan rajaynayaa in dareenka maanta ay muujiyaan dadka Soomaaliyeed ay muujiyaan sanooyinka iyo bilooyinka soo socda insha Allah taala assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh